بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن أخيارتا قيمها بدن ميلك السوات جوكتان وحس قرق بيش نوفمبر وقالنك علي مهد يوسف يتبنتي حسن مولد حسني haddaba ku soo dhawaada qaybtii koobaad. November waa bisha 11aad ee sanadka miilaadiga, inkastoo asal ahaan magaceedu ka soo jeedo afka Laatiiniga, macna ahaana ay noqonayso 9. Kalendarka Roomaankii horena waa bisha 9aad ee sanadka. 30 maalmood ayay ka kooban tahay. Markan haddaba u gunda degno dulucda qormada, waxaa jira dhacdooyin badan oo bishan dhacay. Haddaan qaybo ka mid ah soo qaato 2 madaxweyne oo soo maray Somaliland ayaa bishan November geeriyooday. Siyaasiyiin dad magac ku lahaa bulshada dhexdeeda iyo shakhsiyaad kale oo caan ah ayaa godgalay bishan. Sidaasi la mid ah madax dhowr ah oo caalamka ka tirsan ayaa iyaguna godgalay bishan, waxaana ka mid ahaa madaxda Somaliland soo martay. Haddaba qaybta koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa 8 bishii November 2003 waxaa magaalada London ku geeriyooday madaxweynihii ugu horeeyay Somaliland, Allah u naxariistay, Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur. 13 bishii November 2003 ayaa lagu aasay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. 15 November 2024 waxaa caasimadda Hargeysa ku geeriyooday madaxweynihii afraad ee Somaliland, Allah u naxariistay, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, dhinaca kalena ahaa gudoomiyihii ugu muddada dheeraa ee SLM, isla markaana xilka gudoomiyenimada ku wareejiyay Cabdiraxmaan Tuur. 23 November 2013 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday, Allah u naxariistay, Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo bartamaha kontamaadkii ku soo biiray saaxadda siyaasadda. Muddadii talada Soomaaliya la wareegeen militarigu waxa uu safiir ka noqday dalalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Ruushka iyo wakiilada qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya. Sanadii 1990 waxa uu noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Sanadihii 1997 ilaa 2005 waxa uu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland. Diblomaasi xog badan ka haya siyaasadda caalamka ayaa uu ahaa, waxaanu si fiican uga hadli jiray luqadaha Ingiriisiga, Carabiga iyo Ruushka. 18 November 2020 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday, Allah u naxariistay, Cumar Cartan Qaalib oo muddo dheer ahaa wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya. muddadaasna waxa aad loogu xusuustaa sidii uu Soomaaliya uga mid noqotay ururka Jaamacadda Carabta, inkastoo xubno badan oo madaxdii dalalka Carabta ah si cad uga soo horjeesteen ku biirista Soomaaliya Jaamacadda Carabta, balse Allah u naxariistay, Cumar Cartan Qaalib oo si baliiqa uga hadli jiray afka Carabiga ayaa aad ugu dagaalamay, aakhirkiina meel mariyay inay Soomaaliya ka mid noqoto Jaamacadda Carabta. waxa kaloo Cumar Cartan Qaalib lagu xasuustaa inuu si adag uga soo horjeestay qaabkii loo salaami jiray boqorkii Hayle Salaasa ee Itoobiya oo cid kasta oo gacan qaadaysa u sujuudi jirtay. 7 bishii koobaad sanadii 1991 ayaa Maxamed Siyaad Barre u magacaabay Cumar Cartan Qaalib ra'iisul wasaarihii Soomaaliya. Mar kale ayaa dawladda Cali Mahdi ee isla waqtigaasi ee wadda la wareegtay ayuu ra'iisul wasaare ka noqday, iyadoo weli dagaal ka dhex socdo SLM iyo ciidamo taageersanaa dawladdii dhacday ee Maxamed Siyaad Barre. 28 bishii koobaad sanadii 1991 waxa uu ka hadlay Radio Muqdisho, waxaana uu amray in ciidamada dawladdu isu dhiibaan jabhadda SLM ee ka dagaalamaysay waqooyiga ee Somaliland iyo USC oo koonfur ku sugnayd. sidaasna waxa ku soo afjarmay dagaalkii. 17 November 2023 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday, Allah u naxariistay, Maxamed Xaashi Cilmi oo ka mid ahaa xubnihii ururka SLM ee kaga dhawaaqay magaalada London sanadii 1981. waxaanu muddo dheer ka tirsanaa madaxdii hogaaminaysay SLM. sanadii 1991 waxa uu isu soo sharaxay gudoomiyihii ururka SLM, balse tiro yar ayaa lagaga guuleystay. intii ay jirtay Somaliland dhowr xil ayuu ka soo qabtay xukuumadihii u kala dambeeyay talada. 15 November 2023 waxaa isna geeriyooday, Allah u naxariistay, Maxamed Xasan Cabdilaahi Jirif oo sanadii 1991 dawladdii Cabdiraxmaan Tuur xilka taliye ku-xigeenka ciidanka amniga ka ahaa. xukuumaddii Cigaalna taliye ku-xigeenka ciidanka booliska.
iyo agaasimihii guud ee wasaaradda macdanta ka soo noqday dowladdii madaxweyne Siilaayana taliyaha guud ee ciidanka qaranka mar ahaa. 26 Noofembar 2006 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Allah u naxariistee Xasan Yoonis Habane oo 3 jeer noqday taliyaha ciidanka qaranka. 8 Noofembar 2019 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday taliyihii ciidanka booliska Somaliland Allah u naxariistee Cabdilaahi Fadal Iimaan. 9 Noofembar sanadii 1998 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday aabihii saxaafadda xorta ee caalamka afka Soomaaliga Allah u naxariistee Maxamuud Cabdi Shide waxaana uu maalgeliyay wargeyska caanka ee Jamhuuriya oo gaarsiiyay heer caalami. 8 Noofembar sanadii 1999 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Allah u naxariistee Professor Maxamed Nuur Caalim waxaana uu ahaa khabiirkii turjumay qaacidooyinka xisaabta ee lagu baran jiray dugsiyada Soomaaliya. qoraalka farta Soomaaligana aqoonyahanadii sida weyn uga howlgalay ayuu ahaa Allah u naxariistee. haddaba halka waxay noogu eeg qaybtii koobaad oo xiiso iyo xamaasad lahayd. haddaba la socda qaybta labaad oo iyaduna ka sii xiiso badan oo ka hadlaysa haldoorkii dhintay Allah u naxariistee bisha Noofembar ee soo malay geyiga Soomaaliyeed kuwaasoo ka kooban fanaaniin, abwaano iyo madax iyo dad kale oo caan ah. waa qalinka Cali Mahad Yuusuf iyo tabintii Xasan Mawlid Maxamed. aad bay u mahadsantihiin.